حديثك الصحيح يا أبي هريرة ورينيو البخاري ومسلم كسوغاني وحاو تلماميا إنا يكوها اللين يرانت أما يقول مركاسون ده شقيا الناس صدح بدواء عيسى بن مريم القرآن كاي نوع ديو وحو كوها اللين ده وحي قايل هاي كشاق متك اللباد دوان بدلا يراده صاحب جريج حديث كعطينا إياه وني صوفيا بو هايو meel qalwo abu ku cibaadeysan jiray hooyadii baa u timid oo way u yeedhay wuxuu ilaahay ma islaantan u jawaabaa mise salaadan sii wataa salaadiisii iska watay islaantiina da islaan xanaaqday bay noqotay oo way u carootay markuu ajiibi waayo waxay tiri ilaahay waa ka soo dew aqbali waaye macna waxa aad ku salidaa hadilin ilaa aad ku salido dumarka jirkooda iibsada ووجهه جيرو تستو مال حن باي كابارت عباده ابو كفانيا كوا افيسن الله عنده وقلي بيت وحي قا مشغوله waa cibaade islaan xayraana bay noqotay ninkii isaga ahaa abaarkii baa ku dhacdo hooyooyinka waa la iska ilaaliyaa waxa uu soo baxday mid kuwa jirkooda iibsada ah khariban dabeedna waxay ka doontay inuu sina ku sameeyo wuu diiday muamarad bay u samaysay mid xoolo la jooga ayay nafteeda u dhiibto kiiba ilma ka dhalay yaa ka dhalay hadii la yirina waxay tiri ka tukanaya khadka khatar weey iska ilaali soonaha xidhan ha galin isagoon galin baaba la soo doontayba ninkii waa la soo qabto aqalkiisii yaraana waa laga jajabiyay gacanna waa la saaro waa la dhibay in la dilaaba la doonay ma waxyeelo weyn baaba loo geystay bali yardaayay buu aan weysaystaan tukado uu weysaystay uu tukaday ilaahay buu markaa telefoon iyo taar u dirayaa si uu markaa rabbi u furdaamiyo arrimihiisa salaaduna waxyaabaha wax lagu furdaamiyo way ilaahay ku furdaamiyo kii yara halkan fadhiyo bugujiyo wuxuu aabaha waayo halkay culimada qaarkood ka faa'iideysteen waa culimo koobane wala tusinaha in kii dhalay loo nisbayn karo laakiin waa qawl iska shaada wala aabaha waayo markaasuu buu raaci waa ka ariga la jooga warkaba uu soo ururiyay intaynu uga jeednaa waa inta mid yaro imika dhashay ayaa maxkamadiiba kala go'aamiyay wixii la isku haystayba aabahay adiga ma aha waa ari raacab ninkii waa laga naxayo warbahashii yaraydan ku dhisnabaalay aqalkiina dahab waliba kaaga sameeyay xaalna qaado waradeeri daayay buu dhoobadaydii uu igu celiyay marka xadiidkaas wuxuu sheegay inaan ka yar inuu hadlayo waana arinta meesha ku jirtaana waxa weeye qofka cafiifka ah ilaahay waxyaabuhu ku bari yeelo waxa kamida cidaan horaba oo hadlin inuu ilaahay ka hadliyo kaasina kaasu bari yeelay maryamna inankeeda bari yeelaya midka saddexaadna wuxuu ahaa oo xadiidkaasi uu sheegayo ruux dumar oo reer banu israa'iil ilma yar jaqsiinayso mujo ah waxa soo maray nin hayruufayo hadaafaya oo xaragoonayo saa isu kala gurayo kibir badan ka muuqdo waxay tii ilaahay inankayga ka gaashaaman oo kale ka dhig ninkaas sida fiican isu qaadqaaday intuu saaw eegay midkii yaraa ayuu ilaahay ka soo kala hayga dhig naaskiisii buu iska sii watay kadibna waxa hadana soo maray mid adoonaho ay garaacayaan ay jiidayaano ay leeyihiin waxna way xaday waanay sinaysatay ilaahay inankayga ka soo kala ha ka dhigin bay tiri qofka la duleysanayo uu eegay midkii yaraa wuxuu ilaahay taasoo kala iga dhig mar labaad buu hadlay markii saddexaad bay la hadasho waxay tiri maxaad sidaa u tiri markay aragtay inuu hadlayo waxaan u dhibuu ka hore mid kibray buu ahaayo kadeedan marka ilaahay kama bariinu ka soo kala iga mid dhigo tanina gabadh wanaagsan oo dhowrsoon oo fiican bay haydo waxay leedahay xasbi allah wa ni'mal wakiil erigaasay ku celcelinaysaa marka way sinaysatay iyo waxbay xadayna way leen waana beentood mu'minada miskiinada ah ayaan ilaahay inuu igala mid dhigo codsaday saddexdaas xadiidkaasi cadeeyay xadiidka kale inta ku soo aroortay waxa weeye sanadkoodan qawi hayn ama waanu ku cadayn wa shahida shaahidun min ahliha qisadii nabi yuusuf iyadana kuma cadda markhaatuun baa jiray baa la yidhi inuu mid yar ahaa iyo in kale kuma cadda